أهلا بضيوف قد جاءوا اجزهم الجنة يا باري. أهلا بضيوف قد جاءوا فبدوا كالنهر المنسى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي قالي أهوى إن سلامي مقعيق ورحمة هلك أدنى قدا ونسان وملك channel. maanta waxaan rabaa inaan idin la wadaago cashir kamid ah cashiradii taxana inoo ahaa ee hore inoogu socday uga hadleynay tarbiyada ama barbaarinta ubadka cashirka xoogaa hagada naga yara kelay sababtoo ah wuxuu u baahan yahay waqti fara badan iyo juhdi badan in la geliyo maraajic badan in la soo akhriyo YouTube markaan soo gelin waxaa aragnay inuu yahay yani cashirka ugu fiirsashada yar waxaa u garanay macnaha inaadan ihtimaam fara badan siinaynin uu aad muhiim idinkuga ahayn marka qofka insaanka ah mar walba markuu wax wanaagsan uu qabanayo uu rabo inuu idin faa'iideeyo wuxuu u baahan yahay dhiirigelin iyo garab istaag inaad siisiin fahanteen qofka niyad jab uu dareemayaa wixii uu waqti badan geliyay meel badan ka soo akhriyay aad u soo diyaariyay hadana aanan la fiirsanaynin wuxuu u garan karaa yani inaysan aad muhiim u ahayn marka sidaas darteed hakadkan ugu imaaday marka waxaan rabnaa si aan u dareeno inuu cashirka muhiim yahay idinkana aad u baahan tihiin in yani videoga ama cashirka aan soo galino aan ka aragno like fara badan inaan siisiin videoyaasha kale si aadan u siinin inaa u siisaan sababtoo ah wuu ka muhiimsan yahay wax badan uu qabanaya wax badan uu dhisaya waana hadafka ugu weyn aan janaalka u sameynay sidoo kale waxay igu dhiirigelinayaan yani ujeedadeedii inaan ka leexanin oo mar walba aan ku socdo dad kale oo fara badanna way arkayaan asxaabtiinana gaarsiiya insha Allah dadka ay isleeyihiin way u baahan yihiin hore waxaa uga soo hadalnay naasnuujinta oo aan u kala qaybinay 4 qayb iyo naasnuujinta ka hor ilmaha intuu caloosha ku jiro muxuu u baahan yahay iyo inta uusan caloosha gelin waxyaabaha loo baahan yahay labada waalid iyo kasii hor yani doorashada lamaanaha insha Allah maanta waxaa ka hadli doonaa marxalada caruurnimada hore oo ka bilaabanayso naasnuujinta kadib 2 sano ilaa 6 sano ay ku eg tahay waana marxalada loo yaqaan yani ilmaha intaanan madrasada la gelin ka hor waxaan ka hadli doonaa marxaladaas waxyaabaha loo baahan yahay ilmaha in la baro iyo waxyaabaha uu gaarka leeyahay iyo qaababka ama dhinacyada oo koritaanka sameynayo sidoo kale koritaanka waxyaabaha saameynta ku yeelan karo marka ugu horeyso marxaladaas ilmaha wuxuu u baahan yahay in la baro hadalka cunto in loo bilaabo socodka waxyaabahaas oo dhan u baranaya hore saa idinku soo sheeg mar walba waxaa loo baahan yahay ilmaha markii hadalka la barayo in mataqaana ishek aanan hadalka gaban lagula hadlin sida isagu uu hadlayo kale inaan loola hadlin oo mar walba hadal fasiix ah lagula hadlo sidoo kale marxaladaas waxaa loo baahan yahay in la baro caruurta saxarada kaadida iyo waxyaabahaas oo dhan in yani uu baran karo yani waqtiyadeeda oo bambar ama cafaayad hadii loo xiri jiray laga furo oo la baro tuunjiga ama suuliga hadba yani wixii oo markaas la isticmaalayo hadda dunida way hormartay waxaa jiro ilmaha ay isticmaalayaan suuliyaasha loogu talagalay dadka waaweyn duujiyaal waxaa jiro yar yar ah oo caruurta loogu talagalay oo godka ama duleelka saa loogu saarayo sidoo kale waxaa la barayaa calaaqaadka ama xiriirka kala dhexeeya bulshada hore wuxuu u yaqaanay hooyadiis iyo aabihiis iyo dadka guriga la joogo ama marka qaar u imaanayo hadda waxaa la barayaa dadka oo dhan oo xiriirka la dhexeeyo habaryaro abtiyaal adeero qaraabo kan hebel waaye waxaas uu ku yahay يعني حرير كاسال سمينايا sidoo kale marxaladan waxay aad muhiim ugu tahay waalidiinta yani inay u diyaar garoobaan waa marxalada oo la dhisaayo shakhsiyada ama dadnimada canuga marxalada ee sameysmaysabaay
su-aalihiisa aad fara badan su-aalahaas oo dhan inaa uga wada jawaabtaan yani inaa isku diyaarsaan waaye marxaladan waxyaabaha ee kaarka la tahay waxaa kamid ah yani ilmihii xarakaadkiisa ama dhaqaaqiisa uu badan yahay hooyada mar walba u arkaysa inuu yahay ilmo dhib badan taas waxay ku tusinaysaa inuu aad u dhaqaaqayo uu dhib badan yahay waxay ku tusinaysaa ilmahaaga inuu caafimaad qabo inaa la yaabtid ma ahan waa wax oo dabiici ah oo wax mushkilad ah ku dhisno waxay kamid tahay waxyaabaha uu kaarka leeyahay sanadkaas markuu maraayo 2 sano ilaa 6 sano intuu dhaxeyso sidoo kale waxyaabaha uu kaarka leeyahay waxaa kamid ah madax adeeg hadii uusan madax adeeg lahayn oo wax walba oo loo diro uu sameynayo wax walba haye uu dhahayo macnaheedu waxay ka dhigan tahay xoogaa ilmahaas koreyshiisa ama caafimaadkiisa inay wax ka dhiman yihiin sidoo kale waxyaabaha uu kaarka leeyahay waxaa kamid ah wax inuu aad u goobiyeeyo ama uu iska dhigo wax walba oo la sameeyo uu jecel yahay inuu ka daba sameeyo sidaas darteed waxaa looga baahan yahay waalidiinta in yani ilmaha ay tusaale u noqdaan mar walba wax fiican ee hortooda ku sameeyaan sidoo kale waxaa kamid ah waxyaabaha uu kaarka leeyahay marxaladaas in uusan kala karaneynin saxda iyo khaladka sidaas darteed waxaa loo baahan yahay ilmaha inaanan la ciqaabin totally wax ciqaab la dhahayo marxaladaas markuu ku jiro sababtoo ah ma fahmi karaba waxa loo ciqaabayo iyo waxa saxda iyo waxa khaladka ay fahmi karo sidoo kale marxaladaas waxyaabaha ay kaarka la tahay waxaa kamid ah su'aal fara badan mar walba inuu su'aal ku weydiinayo wuxuu ku dhahayaa tusaale ahaan qalinkan kan maxaa waaye qalin waaye qalin maxoo qabtaa waxaa soo qabtaa waxaa lagu qoraa see wax loogu qoraa muxuu ka kooban yahay yani su'aal fara badan uu ku weydiinayaa sababta uu su'aasha ku weydiinayana waxay tahay maskaxdiisa faaruq ah يعني wuxuu korsanayaa aqoon nolosha dhana ah hada u bilaabanayso inuu wax barto uu bilaabaya sidaas darteed su'aalihiisa way badan yihiin waalidka marka waxaa laga yaabaa in ilmaha ay weydiiyaan su'aalo mararka qaar oo taafih iska ah ama aan wax macno lahayn laakiin ma ahan inay ka xanaaqaan waa inay uga jawaabaan si sax ah waliba oo xikmad ku jirto sidoo kale marxaladan waxyaabaha uu kaarka leeyahay waxa waaye يعني si oo khiyaali ah inuu fikiro ilmaha mararka qaar waxaa laga yaabaa inuu kaaga sheekeeyo waxyaabo khiyaali ah oo maskaxdiisa ku soo dhacdhacayo waxyaabahaas in aad kaligeystid waaye aadan dhihin been waaye sababtoo ah ilmaha been ma yaqaanaan caruurta yaryarka ah been ma sheegan sababtoo ma bakaranayaanbo sidoo kale wuxuu jecel yahay ama marxaladaas uu kaar leeyahay يعني فانك أما يعني تنافس إنه سمايو يا وكار لي هاي إن وحصل له حاجة فائدة سنة إن يعني يركلين ونقطة إن هذا الأساس سماية عادي إن أساس نقطة دوايس كذا كذا سيدو كله مرحلة داس وحيابا وكار كليه هاي وحكمت يعني koritaanka luqadiisa oo aad u badanaysa xiligaas yani wuxuu aad u baranaya hadalkii markii hore haduu jabin jiray ama kelmado ka kaaban uu ku hadli jiray in yani si fiican uu hadlo luqadiisa ee horumar sii sameeyso horena waa idinku sheegay mar walba ilmaha waxa loo baahan yahay in lagu hadlo hadal fasiix ah yani sida qof weyn adoo la hadlaysid oo kale ina u lahadashid sidoo kale waxyaaba uu kaarka leeyahay marxaladaas waxa kamid ah ilmaha inuu jecel yahay inuu wax furfuro inuu wax rakibo taasna waxa uga faa'iideysanay in yani ay u keentid waxyaabaha caruurta ay ku ciyaaraan isagana maskaxdiisa korinayso aqligiisana kor u qaadayso dhahdid waxyaabahan furfur dan isku rakib hadane sidoo kale marxaladaas waxyaaba uu kaarka leeyahay waxa kamid ah yani انفعالات كيسة أو أنا نفدين انفعالات معناها وحكا وضع مساج كيسة مرة والبميت فريا معاً مرة قارو حاليا بقى ينو آدو حناقسانيا هاي وحيابو يرنو كحناقايو مرة قارنو وآدو فرحايو يعني حالة ديسة مفاديسو ما كرنا يفصو مالو حلودو هورا وحا اوغا سو هادلناي وحيابا او كاركليا هاي يو وحيابا او باهايا هاي إن يعني الله سمايا مرحلة اسمه كجرو إيوه مرحلة سنفتر كده يعني محيطها هاي
haddana waxaan ka hadlaynaa jawaanibta ilmaha koritaanka uu ka sameynayo. jaanibka ugu hore waxaa waaye oo koritaanka sameynayo jirka, yani waxaa imaanayso isbedel inuu ku dhaco jirkiisa. horena waxaa usoo sheekeynay inuu xarakaad fara badan inuu leeyahay. waxaa loo baahan yahay yani xarakaadkaas in looga faa'iideysto oo wax badan la mashquuliyo, loo ogolaado inuu ciyaaro, boodboodo. Cumar bin Khadaab nagu soo dhahayo ilmihiina bara dabaasha iyo leebka sida loo tuuro ama yani shiishka sida loo rido inaa bartaan. taas waxay ka qayb qaadanaya yani koritaanka ama dhisida jirka ka qayb qaadanaya. sidoo kale waxaa loo baahan yahay ilmaha caqligiisa in la dhiso, isagana koritaan uu sameynaya. waxyaabo yar yar ah oo simple ah in la baro. markaas oo kale waxaa u fudud inuu wax u xifdiyo. wax badan uu xifdin karaa. waxaa xifdisiin kartaa adkaarta, adkaaru sabaax, adkaaru masaa, quraanka, aayado fudfudud yani inaa bartid. waxyaabahaas oo dhan uga faa'iideysan kartaa. sidoo kale waxaa koritaan sameynayo akhlaaq ahaan inuu qofkii inuu koro ama canugkii inuu akhlaaqiyan inuu koro. waxaas oo dhan waxaa loo baahan yahay waalidka inay ka qayb qaataan. koritaankaas aan kasoo sheekeynay waxyaabaha saameynta ku yeelanayo waxaa kamid ah dhaxalka ama waxyaabo uu ka dhaxlayo ilmaha hooyada iyo aabaha. marxaladaas ilmaha uu jiro 2 sano ilaa 6 sano inta u dhaxeyso waa marxalada uu qaadanayo sifaadka hooyada iyo aabaha, haday ahaan lahayd sifaad oo caqliyan iyo sifaad jir ahaaneed. sidoo kale koritaanka jawaanibta aan soo sheegnay waxaa qayb ka qaadanaya ama saameyn ku leh cuntada caafimaadka leh ama waxyaabaha healthiga ah oo la siinayo caruurta. haday ahaan lahayd yani jir ahaan inuu u koro qof oo jirkiisa caafimaad qaba inuu noqdo. hooyooyinka inta badan waxaa ognahay ilmaha markay yar yihiin mar walba waxay la taagan yihiin isbitaalada, laakiin taas waxaa ka caawin karo ilmaha oo naaska 2 sano ugu horeysa sax ah loo siiyo. cuntada markii loo bilaabayna cunto fiican oo healthy ah in la siiyo waxay ka qayb qaadanay koritaanka jirkiisa iyo caqligiisa. sidoo kale waxyaabaha saameynta ku yeelanaya waxaa kamid ah bii'ada ama deegaanka caruurta uu markaas la nool yahay uu dariska leeyahay ama madrasada. marxaladaas laakiin madrasa ma gaarin, waxaa jiro marxalad ka horeyso oo xadaano la dhahayo. ilmaha aanan waxba la baraynin laakiin waa lagu barbaarinaya waxyaabihii hadda aan soo sheegnay loo sameynaya. yani booska hooyada oo kale uu matalaya qofkaas. hooyada waxaa laga yaabaa inay mashquulsan tahay ama shaqo iyo waxaas ay heeso. yani dadkaas oo kale saameyn ayay ku yeelan karaan. sidoo kale waxaa saameyn ku yeelan karo koritaanka jawaanibtaas ama koritaanka ilmaha habka hooyada iyo aabaha ee ula tacaamulaan caruurta ama ee wax u baraan. yani juhdi fara badan haddii kashteen waxaa ka dhalanayo waxyaabo fiican ama miro fiican, natiijo fiican ka dhalanayso. ma fahanteen? cashirkeena intaas ayuu ku egyahay. insha Allah waxaan rajeynayaa inaad wax badan ka faa'iideen. waa mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. أهلا بضيوف قد جاءوا اجزهم الجنة يا باري. أهلا بضيوف قد جاءوا